Sweden reer Somaliland runtii Sakariya Xasan Wacays lana ay ku soo dhawow iyo marti sharafta kale ee la socota muxuu ahaa ka tirsan Sweden oo kulli hor socda ama Google xaado ah wafti balaaran oo isna bariino iman doona hadii la hayraado oo madaxdii Stockholm iyo Sweden ay degmada ay ku jirto waxa kale oo soo dhaweynayna xildhibaanada golaha deegaanka ay soo dhaweynayaan maayerka hore magaalada Ismaaciil Yunis waxaan leenahay iyadoo la sugayo hawl wanaagsan gaar ahaan specialist kariya waxaan leenahay ku soo dhawow degmadaadii gobolkii gabiley ka soo dhawow inkastoo wax qabadkaagu u badan yahay Soomaaliland inteeda kale gabileyna runtii waxa kamid tahay Soomaaliland oo deegaanada aan aadahay ku kooban meeshii uu ku dhashay haddana waxaan ku leenahay soo dhawow waxaan xasuustaa safarkii aan ku tagnay markii hore ku tagay islahayn Finland oo ay safaaraddu muxuu ahaa noo qabatay waqti dheer adiguna 24 saacad gudahooda safaaradda Ethiopia ay tiri hadda maaragtay soo doonta fiisayaasha wade guulaha maaragtay ka gaadhay weeyaan daladaada ma jaaliyada reer Somaliland marka runtii reer Somaliland oo ogyahay waxa uu tartay maayarada mid daraf ilaa daraf taariikhdooda isqori doonta soo dhaw Sakariya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh yaftiga runtii gobolkana waa loo shaqeynayaa gobolada kalena waa loo shaqeynayaa Somaliland oo dhan waxaan u maqanahay wadalkeegii insha Allah waxaan rajaynayaa waftiga aan wada soconay dhamaantood deynayuu yimaadaan baritoole imika ujeedada aan u nimid waxa weeyaan indhayn xaaladda dhabta ay ka jirta haday noqoto dadka agoomaha ah dadka disableka ah jeelka oo qaybta haweenka ah doonayno inaan daynayno halkan waxay la socda Hans oo ah in ka shaqeeya oo qaabsan xab oo marka hawla ka wada Kenya Sweden ka soo shaqeeyay oo doonayno markii ugu horeysay dalkeena in la keeno wixii progress intay sameeyaan wixii la qaban karo ay qabtaan leeyna ay la socoto oo iyaduna hore u timid halkan oo gurigay ka mid ahayd 4 bilood ka hor oo ballan qaaday inaan soo noqon doono iyaduna u shaqeysa runtii hay'adda Norway oo maalgelisa markaasi mashaariic laga wada Kenya taasoo u qorshaysantay leeyna in halka ka bilowdo hadii Ilaahay yiraahdo laakiin waxa ay oo dhan marka aan u soconaa waa shaqada ka bacdina waxa weeyaan waxaan u hawlgeli doonaa insha Allah sidii maxay ujeedadana ugu midhalin lahayn waxaan isku dayahay kelmadii mahadnaqayn waa Ingiriis iska hadli doonaa waxaan si dhahdo ku kambara sayan no kort om din upplevelse om att ha kommit hit och kort om vem du är och så. Och på engelska. Okay. So thank you, City Mayor. It's interesting to be here. And this short information give me also a lot of information that you are a community that work very hard and well organized. That's make me happy. thank you My preference myself is I have been a journalist for a lot of years. So I have a discussion, had discussion yesterday. What can I and my colleagues in Sweden do for the journalism here in Somaliland? I have also worked for NGO in Sweden in 20 years. And I'm working a lot in Kenya. So I know the culture. The culture are similar in some way and very different in some way, and also the landscape. I haven't seen an elephant or giraffe here yet. what is The last 7 years, and that's the reason why I am here today. The last 7 years I have been working in the prison in Mombasa, Shimulatewa. It's one of the biggest prisons in Africa. 3,400 prisoners. And been working inside the prison. And also now we are going to find some exit program to help the prisoners when they are released. So they can go back to the community, because 80% is going back to the prison. And that's cost very lot for the community. And last Christmas, I decided
to spend my Christmas, leave the family at home and spend my Christmas in prison. So that was amazing. So I was at the women's side with 250 women and 20 children and celebrate the Christmas together with them and give them a Christmas gift and good food and toys for the children. So that's what I'm burning for, to see the prison, be with the prisoners, help them inside, try to get them to change their mind, to leave the crimes, and help them when they're coming out. So my preference from Kenya is very good, and I hope I can do something here in Somaliland too. That's my mission. Thank you. Thank you. Thank you.